بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kasto aad joogto aad muuqaalkan ka daawanayso magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Aadan muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan idinku tuso qaabka loogu isticmaali karo AI-da ama wax loo yaqaan artificial intelligence-ga dhinaca muuqaalada haddii aad u baahan tahay inaad qaab farsamo ah u barato qaabka waxa aan ku tusi doono loo sameeyo waxa linkiga hoose aad ka heli doontaa koorso kooban oo bilaash ah oo aad qaadan karto kuna tusaysa farsamo ahaan qaabka waxa aan ku tusi doono loo qabanayo ama loo sameeyo qiyaas waxa ay riyadaadu ay tahay sida uu u ekaanayo studio-gaaga waxaas ayay AI-du ka caawinaysaa inay ku soo darto muuqaalkaaga waxay AI-du suurtagelinaysaa in maalinba studio nooc kale ah aad ka soo muuqato tusaale ahaan hadda goobta aan fadhiyo waa qaybta fadhiga looguma talagelin in muuqaal lagu soo gudbiyo sababtoo ah darbigu waa bannaan yahay geesaha waxa ka muuqda waxyaabaha aan loogu talagalin inay ka muuqdaan waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay muuqaalka ka dhigayaan mid boring ah oo aan xiiso lahayn balse ka waran haddii meeshaan aan fadhiyo aan ka dhigi karno sidan ama aan ka dhigi karno sidan haddaba sida u jeedo gidaaradaas kala duwan iyo waxyaabaha aan ku soo daray oo dhan ma ahan waxyaabo waqti iga qaadanaya AI-da ayaan u sheegayaa inay waxyaabahaasi ku soo darto sidoo kale haddii ay dhacdo in muuqaal inta aad duubto aad aragto in qayb ka mida muuqaalku aysan qurxooneen isla AI-da ayaa dhihi kartaa qaybtaasi ka saar ama waxaad dhihi kartaa qaybtaasi bedel oo wax kale ku bedel ama wax ku qari haddaba waxaan rabaa inaan kaaga tago haddii ay riyadaadu ahayd in meel noocan oo kala ah iyo meelo ka qurux badanba aad dadku wax ugu soo gudbiso waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho AI-da haddii aad rabto inaad barato qaabka waxyaabahan aan hadda ku tusay oo dhan loo sameeyana koorso bilaash ah oo wax lacag kaaga baxaynin ayaan diyaariyey oo aan ku tusayo qaabka loo sameeyo farsamo ahaan iyo barnaamijyada aan sheegay qaabka loogu isticmaalo kusoo biir ayaan ku leeyahay koorsadaasi intaa dib dambe u kulmi doono intiina isdiiwaan gelisay waxay noo balanaa qaybta kale intiina kalena waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh